Dunidu waa mid si xawaare leh ku socota, horumarinta tiknoolajiyadana waa mid si aad ah loo dareemi karo. Bal aynu dib u eegno 60 sano ka hor, tiknoolajiyada iyo farsamooyinkii la isticmaali jiray waa kuwo si aad ah uga duwan kuwa aynu maanta adeegsano. Sida fiidiyowgan aan ku sharxi doonaba, Google waxay ku beddelaysaa hanaanka xisaabinta kombiyuutarada iyadoo soo bandhigtay chip cusub oo quantum ah oo lagu magacaabo Willow. Hal-abuurkan cusub wuxuu tilmaamayaa waayo cusub oo xawaare iyo waxtar leh, kana sarreeya awoodda kombiyuutarada ugu horreeya ee casriga ah. Laakiin ma u malaynaysaa in chip-kan cusub uu dunidu wax ka beddeli doono? Nala joog, annaga ayaa soo bandhigi doona hal-abuurkan cusub oo Google-ka u qaadi doona adduunyada waayo cusub. Google waxay dhawaan la soo bandhigtay chip quantum ah oo cusub oo ay ku sheegtay inuu xallin karo dhibaatooyin adag kaliya 5 daqiiqo gudahood, taas oo aad uga duwan kombiyuutarada ugu dhaqsiyaha badan maanta oo u baahnaan lahaa waqti aan la qiyaasi karin oo ah 10 septilyan oo sano si loo dhammaystiro hawsha. Horumarkan cajiibka ah wuxuu ifinayaa awoodda quantum computing-ka oo ah hab ay iskugu dayayso inay kaga faa'iidaysato mabda'a sayniska si loo horumariyo nidaamyada kombiyuutar leh awood iyo waxtar aan horey loo arag. Chip-kan cusub oo loo bixiyay Willow, Google waxay ku sheegtay inuu yahay tallaabooyin muhiim ah oo loo qaaday dhanka horumarinta kombiyuutarada quantum-ka ah. Waxaa la sheegay inuu ku jiro horumar muhiim ah oo horseedi karo in la sameeyo kombiyuutaro quantum ah ee ballaaran ee awood u leh xallinta dhibaatooyin adag oo hadda ka baxsan awoodda kombiyuutarada caadiga ah. Horumaradan waxay ku jiri karaan xasilloonida qubit-ka, sixidda qaladaadyada, iyo hawlgallada quantum gate-ka, kuwaas oo dhammaantood muhiim u ah dhammaystirka kombiyuutaro quantum ah oo shaqeynaya oo laguna kalsoonaan karo. Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo farxadda ku saabsan Willow ay xooggan tahay, khubarada ku xeel dheer waxay ku boorinayaan taxaddar. Waxay tilmaamayaan chip-kan inuu yahay aalad tijaabo muhiim ah, balse aan weli ahayn mid si buuxda u shaqeeya. Socdaalka loo marayo hirgelinta kombiyuutaro quantum ah oo si buuxda u shaqeeya oo wax ka qaban kara caqabadaha dhabta ah ee dunidu waa mid dheer oo u baahan maalgelin dhan kastaba leh, lacag iyo waqtiba. Qiyaasaha waxay muujinayaan in ay qaadan doonto dhowr sano oo kale iyo balaayiin dollar oo cilmi baaris iyo horumarin ah ka hor intaan la arkin kombiyuutaro quantum ah oo loo adeegsan karo dhibaatooyin dhab ah oo ka baxsan shaybaarka. Si loo fahmo sababta ay u diidayaan khubarada in la dedejiyo farxaddan, waxaa lagama maarmaan ah inaan eegno qaabka ay u shaqeeyaan ayna fahanno kombiyuutarada quantum-ka ah. Kombiyuutaradan quantum-ka ah waxay ku shaqeeyaan mabda' si weyn uga duwan qalabka xukuma ee caadiga ah sida kombiyuutarada casriga ah iyo taleefannada caadiga ah aan adeegsano hadda. Halkii kombiyuutarada caadiga ah ay xogta u kala saari jireen eber iyo hal, kombiyuutarada quantum-ka ah waxay isticmaalayaan quantum bits oo qubit loo yaqaan. Qubits waxay ku jiri karaan xaalado badan waqti isku mid ah sababtoo ah dhacdo loo yaqaan superpositioning. Taas waxay u oggolaanaysaa kombiyuutarada quantum-ka ah inay sameeyaan xisaabaad badan hal mar, taas oo si weyn u dardargelin karta awoodda xallinta dhibaatooyin adag ee qaar. Tusaale, waxay si hufan u qaybin karaan tirooyin waaweyn, ay u eegaan isdhexgalka molecular, iyo ay u hagaajiyaan nidaamyo adag. Tani waxay keeni kartaa horumaro waaweyn oo dhan kala duwan leh, ay ku jiraan cryptography, agabka sayniska, horumarinta daawooyin cusub. Kartida kombiyuutaro quantum ah inay wax ka beddelaan warshado badan waa mid farxad gelinaysa cilmi-baarayaasha, farsamayaqaannada,
maadaama ay horseedi karto helitaanka walxo iyo daawooyin cusub oo badbaadin kara nolosha dad kuna hagaajin kara caafimaadka. Waan ku mahadcelinaynaa haddii ilaa halkaas aad nala soo gaartay. Haddaba nagu soo biir channel-ka La Soco Dunyo Cusub. Wuxuu kaa saacidayn doonaa inaad fahanto habka iyo sistamyada soo kordha dunida iyo saadaalinta shay'aasha cusub. Kommentiga ra'yigiina noogu reeba. Mahadsanidin.